kulanti wacan u wanaagsan dhageystayaasheedaanu jecelnahay oo meel wala joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena cawiska sheekooyinka oo dabcan habeenka jimcaad si toos uga dhageysataan shabakada wararka muuqaal news xarintooda guud ee magaalada Hargeysa. dhageystayaal habeenkan caawa barnaamijkeena waxa si talantaali idin la socodsiin doona anigoo ah Maxamed Andar iyo Safiya Maxamuud Cawiil. dhageystayaal barnaamijkeena toddobaadkan waxaan kusoo gudbin doonaa sheekooyinkii ugu dambeeyay toddobaadkan iyo daan meesha ka maqnayn qaybihii fanka iyo heesaha. Safiya dhageystayaal badan baa inala socda oo ina dhageysanaya maxaad u soo qaban lahayd? dhageystayaasha waxaan u soo qabanayaa sheeko ku jirta gacantay. nin badow ah ayaa loo soo iibiyay mobil kadib waxa uu tagay mid kale oo saaxiibkiya. kadib waxa uu ku yiri ma waxaad isticmaalaysaa Facebook? kii kale ayaa ku yiri ha. markaasuu yiri isna ana xalay ayaan isticmaalay. markaas Safiya wuxuu isleeyahay ninkaasi kaga horeeyay isleeyahay oo intaan la Facebook ma garanayso ma xalay baan isticmaalay iska yiriba. ha isagu fan buu ka dhiganay maba garanayaba ayaa laga badowga baa lagu yiriba. marka garan maayo isticmaalka telefoonka xataa mala loo soo iibiyay Maxamedow anu saasabaan u maleeyay sheekada. ma badownimadii baa fanka la gashay. هيا محمد إنكو برنامج هراء وصيص عنا محض سوق بنساء أنا وصفية أي شيء كبشيء كنتاي وحن سوق من هالشيء كذا بقولي مالين أيا واحد عدين وعالم بوحو كوري دبق آدو دير كوركي سو كوري دبق آدو دير عدد وين فربنا بهوست أجنا مركز كور ددا هل كان أيا نسكت صوتوريا مركز دتك أيا آدو قيدي آدو قلنا حي وحي كعب سنوني كاويل واني وعالم صوتورا با marka iyadoo meeshii leeyahay sootuun leewan sootuurayada ayaa wax soo istaagay meeshii nin waalan baa yimi markaas uu arkay markaas Safiya ku yiri waa ninkii waalnaaye waryaa soo daadeg buu ku yiri hadii kala fooqan sakin xaq goosa ka tarayaan marka ninkii si degdeg ayuu soo daadegay oo nimanka dadkii badnaa bariyiba ninkii waalnaaye fooqan xaq goosa sakin ka taraya ayaa ka aqli batayba oo sidii ninkii ku soo daadego ku badbaaday. Maxamed oo sheekadaas waxayna oran karanaa dadka walwaalana sidoo isku fahmaan dadka miirka qabaana sidoo isku fahmaan maadaama uu soo dadajiyay kii waa sheekada waxay ka turjumaysaa in dadka waalna goonidooda ay soo fahmaan dadka kalena ay waa tay dhageystayaal annagoo haatan milicsanayna qaybaha suugaanta. haya Maxamed maxaad u soo qabanaysaa? kulli Safiya dhageystayaasha idin badan bayna sugayeen waxaan soo qaban lahaa ismacaan badan oo rajaynayay inay dhamaantood ku raacaysan doonaan waa heestii guuladsiinba. heestaasi uu guuladsiinba inoo qaadayo aan idinku wareejino dhinaca farsamada Maxamed Ducaale.
waa tahay dhegeystayaashaydaanu jecelnahay oo haddii aynu kaga nimaadno heestaa macaanka badan ee uu inoogu wareejiyey farsamo yaqaankayga maxamed ducaale cabdi. iminkan aan hore uga sii socda barnaamijkeeni safiya. dee dhegeystayaal badan baana dhegeysanaya caawana waa jimco loo kala bixi maayo, sheekooyinku way iska soo daba dhacayaan. sheekada labaad eed usoo qabanaysaa maxay noqon lahayd? sheekada labaad ee dhegeystayaasha usoo qabanaya waxay tahay 2 nin oo doqomo ah ayaa tuug usoo dhacay, kadib baaskoolad buu ku qabtay. waxa uu ku yidhi carwa ka isdhaqaajiya, alaabtii oo dhan buu urursaday, wuu iska baxay. saa doqomadii ka mid ah qosol la dhacay. saa kii kale ku yidhi maxaad u qoslaysaa? suu yidhi maanta oo dhan farta ayaan dhaqdhaqaajinayay, ma uusan arkayn. maxamedow safiya ninka tuuga sanfil sheekadu waxay ka turjumaysaa isagu uma muuqan alaabtan waxaad iyo fardiisan ayaa muuqatan filaya. dawaarno ha isdhaqaajinin adiibu isagu wax ka qaatay oo markaa fartiisu dhaqdhaqaajiyo bal inaad fartaada aragtid buu islahaa. waa tahay dhegeystayaal inagoo hore ugu sii soconayna barnaamijka. haye maxamed. safiya haddii aan sii gudagolno barnaamijkeena anigu waxaanu soo qaban lahaa dhegeystayaasheena. waxaa dhacday safiya ninkii la oran jiray Juxo, waa dee ninkii inta badan aan ku maqal jirin sheekooyinka ayaa waxa loo doonay gabadh baa loo doonay. marka gabadha loo doonay meel ayay wada deganayeen. marka Juxo in gabadha mu arkin waxa lagu qanciyay gabadha inuu aad ugu heli doono, gabadhaas ay aad u qurux badan doonto, isagana anfici doonto. markii habeenkii loo soo hooyay Safiya iyo gabadhii inankii ninkii Juxo ahaa ayaa waxa dhacday in gabadhii ay ku noqotay gabadh aad u foolxun oo madow. marka ninkii Juxo runtii aad ayuu arrinka uga xumaaday. gabadhii habeenkii markii ay gurigiisa ugu soo hoydeen ayaa waxa uu sheegtay war Juxo yaan bal ii kala sheegday dadka tolkaaga yaan iska qariyasay yaanan iska asturin. ninkii Juxo intuu aad u qoslay buu dhammaan rag oo dhan ha ku wada muuqdaan, aniguun iska kay astur. marka Juxo uu caar hadlayaa Safiyayo wuxuu leeyahay isagu wuxuu ka carisay dee foolxumada loo qariyay laba tiro way qurux badan tahay. saasuu ayuu ugu riixay xagga kale. waa sida aan daro inkastoo la yiraahdo xagga ragga ayaaban qurux iyo foolxumo lagu kala qaadan, bal Juxana waxaanu leenahay de Juxay quruxda iyo foolxumada u qaadane de gabadhu ku anfacday inay noqoto u qaado. insha Allah sasinu rajayna Safiya waxaan hore ugu socon doonaa barnaamijkeeni san hore soo sheegnayna barnaamijkeena kama maqna qaybta suugaanta iyo heesaha. waxay imka dhageystayaashu inaga sugayaan waa heeso fara badan sida inagu soo gaadhay waraaqaha kala duwan ee inagu soo dhacaya emailkeena heestiibada. dhageystayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee barnaamijkan sida tooska u dhageysanaya habeenkani caawa waxaan u soo qabanayaa hees ay wada qaadayaan Kaltuun Bacada iyo Cabdiqaadir Iije. waa tahay Safiya waxaan rajaynayaa dhageystayaashu inay si macaan ula bogi doonaan heesta. iminkan waxaan ugu wareejin doonaa dhinaca farsamada Maxamed Ducaale Cabdi iyo dhageysi wanaag. Miyan hal naqsigaygo haliyayga jeclaayo
Abartado
karkarada sida yaraatigeediyo aradida noodo inta kuguda helay raatiyay karkarada ama hal abuurka mirihiyo ensaynta maansado iba eeba weeye halibaa hilaalshee ama hal abuurka mirihiyo ensaynta maansado iba eeba weeye halibaa hilaalshee miyan ibashadayday lahaan ka doortay allah quruxka hodone qaybintaada awgeed maxan hool ka soo maray miyan ibashadayday lahaan ka doortay allah quruxka hodone qaybintaada awgeed maxan hool ka soo maray aan horumar gaarno way wadaayag leele hareerkaaday la qabo aan horumar gaarno way wadaayag leele hareerkaaday la qabo aan horumar gaarno way wadaayag leele hareerkaaday la qabo aan horumar gaarno way wadaayag leele hareerkaaday la qabo haddii aynu safiya intaa kaga nimaadno heesta ay dhegeystayaashu dhegeysanayeen anigu dhegeystayaasha waxaan usoo qabtay hees wanaagsan ma odhan karnaa hablihii iyo raggiiba ku kala duwanaaday xagga heesaha hadda oo waanu ka dooq fiicnaanayba damay kumay kala wanaagsanaaninoo dee waayeel dhalinyaro waayna wada dhegeysanayaa maxamedow heesihii hore iyo heesihii dambaba aynu soo xulnaa maadaama adu dhalinyarada xagga dhalinyarada ka raacday bal anigu haddaba waxaan maaweelinayaa caawa xagga dadka waaweyn ayaan heesta usoo qabtay waatay dee maxamedow dhegeystayaasheeda inkastoo aynu goorahan balle caweynaynay oynu caways wacan la qaadanay habeenkani caawa balse inagoo kusii soconna barnaamijkeena uu gebagabana uu kusii siqayo sheekada ugu dambeysad usoo qabanaysa habeenkani caawa dhegeystayaashu waa safiya dee waxaan islaa iyadaa sheeko soo tuurisay maxaad igaga soo raday kolli waraaqu iska soo daba dhacaya waxaansa sheekada u dambeysa safiya caawa in usoo xidho dhegeystayaashii dee kale maxamedow gebagabadii barnaamijka ayaynu soo gaadhnay laga yaabaa dee inkastoon habeenkani caawa aanu madadaalinay qaybta waayeelkiibay ka seexday bal dhalinyaradaadiiba soo jeedee inoo maaweeli alla ilaahay waa siday tahay bal haddaba waxaan usoo qaban doonaa sheeko aan filayo inay dhegeystayaashu caawa aada ula dhici doonaan weliba dhalinyarta dambe ilwadiga safiya kusoo riixaya safiya waase sheegtay waxaan inoogu soo xidhayaa barnaamijkeena waa sheeko khusaysa caruurta maadaama duguti dhalinta caawa adigu maaweeli maxamedow waxaan kusoo xidhlaa waxaa dhacday wiil dhalinyaro ah oo aada u daayar ayaa wuxuu arkay hooyadii markaa iska dawo waqtigii xayaatuljaahiliyadii safiya wuxuu arkay hooyadii oo calool soo yar buurnaaday markaa xaamilayska ahay markaasuu hooyaan su-aal ku weydiiye markaas waa iska niyid waa ka daacatulahay hooyaan su-aal ku weydiiye horta maxaa caloosha halkan kaasoo buuran ma ku yidhi halkan caloosha hooy maxaa kaasoo buuran anigaba tood ma soo buurno taasi mane aabana ma soo buurne markaas islaantii intii qosasho bay ugu jawaabtay hooyo waa walaalka dee safiya waataa sheekadii dee maxamedow koley sheeko la yaab lagu soo qabatay dhegeystayaasheena waatay dhegeystayaal guntii iyo gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaadhnay waxay gun iyo gunaanad u sheekada ahayd barnaamijkii caweyska jimcaha ee raadiyo muuqaal haddaba barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah safiye maxamuud cawiil iyo anigoo maxamed andara haye maxamed barnaamijka koley gabagabadii bay soo gaadhnay macasalaamiyi aynu ku macasalaameynay dhegeystayaasha maxaynu kaga tagnaa safiyay maadaamay tahay habeen jimco ah oo aan odhan karo waa habeenadii jacaylka waarday xagga dhalinyarada markaan ka eege waxaan dhegeystayaashiina u saarlaa waa fanaanada sanadka amaba aan yidhahdo fanaanada qarniga waa xalimo gobaad dhegeysi haboon sidaas iyo nabadgelyo
maalinkiiba 10 jeer dambalina ka maqashaa maalinkiiba 10 jeer dambalina ka maqashaa maankaygu jecelaa hibashada qofka maqan murugiyadii badanaa maalinkiiba 10 jeer dambalina ka maqashaa maalinkiiba 10 jeer dambalina ka maqashaa maankaygu jecelaa waxaaniga igu mudan marna aanan daynay nafta meeday leedahay waadiga macaanu waxaaniga igu mudan marna aanan daynay nafta meeday leedahay waadiga macaanu محبتي ساعة شاقة مسوقية دي بنعبها